adeer waatana walaalayaal gabadhan miskiinta ah oo hooyada ah iyo ilmahan oo quruxda badan ayaa gaaladii waa u taagan tahay hadda laga qaadanayaa marka duceeye u soo duceeye gabadhan Soomaaliyeed gaaladii ka qaadan lahayd waa kuwana halkaan ay joogaan gaaladii qaadan lahayd waa kuwana halkaan ay taagan calaykum salaam السلام عليكم وعن صاحبة شرفت له مجاعيجو وأذن الوكيالة ما أنتوا حربا إن كهالله إن برنامج رنتي إن أنتي نبدأ أتبراه بالشدة كو أركتين جارهان برتا فيسبوك إن برنامج كسوحو يهي ما مصوماليات أو سي لايف لوجا قاذني عنقير أو أيضا أي شيء إن ودن كمريكانك إن صاحبي الأرنتا اللي ياب كلا يا واحد تهي إن أرنتا سي أي كدم بيان إن هو يوين كلا أو صوماليات سلامر كان booliska ugu wacay maamadan si ay caruurta uga qaataan arintan waxa runtii aad iyo aad uga falceliyay Cabdiraxmaan Dabcasar oo runtii aad u wada garanaysan bal saaxiibayaal marka hore waxaan idin tusinayaa bal arinta la yaab kale iyo hooyo weyn oo Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa Dabcasar soo wacaysa isla markaana ku dhahaysa gabadhan arrimaheeda faraha ka qaad in maamadaas oo runtii lagu sheegay inay tahay kamid tahay kuwa booliska ku dacweeyay gabadhan Soomaaliyeed si ay uga qaataan caruurta bal aan isla dhageysano muuqaalkaas fiiri maanad xiraysaa فيري أيضا رالك ما حكى على هذيك فيري لا excuse me she's happy with that and I have a right to record you cannot tell me yeah she cannot نفتح أنت يحرس she's harassing me now saaxiibayaal sidaad arkaysaanba ama aad daawanaysaanba Dabcasar waxa uu ku jiray muuqaal live ah kaasi oo bulshada ku nool gobolkaas ama guud ahaan Mareykanka uu ugu bandhigayay dhibaatadan haysata gabadhan isla markaana uu doonayay inuu ka caawiyo in gabadhan aan laga qaadan caruurtaasna ay helaan qof damaanad qaadi kara oo booliska ka badbaadiya inay qaataan laakiin maamada Soomaaliyeed ayaa soo wacday oo ku tiri arintan waa arinka waaweyn ee faraha ka qaad laakiin nasiib wanaag Dabcasar waa ku adkaystay muuqaalkaas inuu duubo ugu dambeynna waa uu ku guuleystay dantii uu ka lahaa bal saaxiibayaal marka hore bal aad dhageysiyo Dabcasar uu wareystay gabadhan Soomaaliyeed marka hore bal qofka ay tahay iyo maxaa la yiraahdaa in sababaha looga qaadanayo caruurta gabadha ayaa ku jawaabtay sidan walaalay magaca xamdi walaalay ilaahay ilmaha ku xifdiyo maxay kugu haystaan walaalay wada deganayn baan kala nimaanay marka boolis bay ku soo direen marka booliska waxa ku dhahay magaalada adigu ma keenin intaa way hawsh ilmaha bay marka kuwan waa children service ku soo diray marka ma maxkamad waraaqa ka haystaan maxay waxay soo diray gabadhii guriga lahayd Soomaaliya gabadh lahayd guriga lahayd ba boolis wacday booliska marka iyo soo diray marka saaxiibayaal sida aad indhihiina ku aragtaanba muuqaalka ka arkaysaanba gabadhan ayaa sheegaysa in hooyo Soomaaliyeed oo ah milkiilaha guri ay deganeed gabadhan is afgaarin isla markaana booliska ay ugu wacday kuna dacweysay in ay caruurta ka qaataan hooyadan Soomaaliyeed ugu dambeyn waxa yimid kuwii qaadanaya caruurta ama ku shaqo lahaa in ay qaataan caruurta waalidkoodu ay dayaceen dalka Mareykanka waana kuwan aan isla daawano hooyada laga qaadan ilmaheedu waa tan caanaheedu u samaysanaysa waa ilmo qurux badan ma sha Allah hooyaduna waa tan ilmaheedu laga qaadanayo u duceeya ilaahay inuu sharkooda ka badbaadiyo aamin marka ilmahan gaaladii qaadan lahayd ayaa u taagan ilaahay ha badbaadiyo fadlan waxaan ka codsanaynaa qaybaha kala duwan ee jaaliyada culamaa u diinka odayaasha dhaqanka ganacsatada hooyadan Soomaaliyeed inay u gargaaraan oo u hiliyaan oo ilmahan Soomaaliyeed oo gaaladu ay qaadanayso ay badbaadiyaan
saaxiib yaal cabdiraxmaan dabcasar oo runtii aad u wada garanaysaan intiina ku xiran amaba intiina isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan facebooka ayaa maalinkii shalay ahaa waxa uu aad iyo aad uga qayb qaatay in caruurtaas ama cunugaas Soomaaliyeed uu badbaado xitaa arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay in dagaal uu u galay dhibaato ka soo gaari kartay naftiisa bal ila daawada saaxiib yaal muuqaalkan dabcasar oo maxaa la yiraahdaa dagaal afka ah la galaya booliska qaadanaya caruurtan. Listen, no, dude, get away. Do you really want their family's business on the air? This is my family. Do you? No, they're not. Yeah, she's my family. This is my family. This is my family. This is my family. That's her sister. That's her sister. Okay, father, man. Yes, this is my family. Yes, this is our baby. It's our child. That's not fair. That's not right. That's not justice. saaxiib yaal booliska ayuu ka duubayay muuqaal markii ay qaadanayeen caruurta yar isla markaana waxa uu ku sheegayay taasi inaysan ahayn cadaalad ama waxa booliska uu sameeyo aysan cadaalad ahayn wiilkan maxaa la yiraahdaa asaga uu u yahay waalid isla markaana uu yahay wiil kamid ah familkiisa ugu dambeyn saaxiib yaal boolisku waxa ay qaateen cunugii Soomaaliyeed waa qaateen ilmihii waa la qaatay ilmihii waa la qaatay ilmihii waa la qaatay ilmihii waa la qaatay Hey, ma'am. What reason are you taking a baby? ilmihii waa la qaatay ilmihii waa la qaatay idinka buuqa iska daaya Soomaalida ilmihii waa la qaatay Soomaali ala salaam ilmihii waa la qaatay adeer saaxiib yaal muddo saacado ah oo ay cunugan yar ay haysteen booliska iyo kuwan la yiraahdo ama kuwan qaata caruurta la soo dayacay ugu dambeyn dabcasar iyo groupkiisa ayaa waxa ay ku guuleysteen cunugaas inay ka soo bixiyaan gacanta booliska isla markaasna ay ku soo wareejiyaan dadkii familka la ahaa gabadhan haysatay cunuga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال دمانتين سودا وهذا waxaan jeclaan lahaa war farxad leh inaan idinla wadaago dhammaantiin oo ah gabadhii inantii yarayd ee shalay children service ama hay-adda caruurtu ay qaateen alxamdulilah xalay saqdii dhexe ayaa gabadhii ilaahay gacanta ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ku soo wareejiyay saaxiib yaal sidaad maqashaanba gabadha cunugii yaraa ugu dambeyn waa la soo celiyay oo waxa lagu wareejiyay Soomaali ee runtii dhibaato weyn u maray arrintaas isla markaana ay ballan qaaday inay damaanad qaadayaan cunugan yar saaxiib yaal halkaas ayaan rabaa barnaamijkan inaan ku soo gabagabeeyo waxaana runtii ummadda Soomaaliyeed dhammaan u mahad celiyeen isla markaana ay u hambaliyeen dabcasar oo runtii sameeyay arrin aad iyo aad loogu farxo waad ku mahadsantihiin saaxiib yaal daawashada muuqaalkan.